waxaan arkay in baahi weyn loo qabo takhasuskayga iyo aqoonteyda baahi gaaray ka jirto sidaas darteed ayaan rabay inaan ugu soo noqdo aan u helo opportunity aan ku soo noqdo waddanka oo shaqadaas uu ka qabto magacaygu waa Dr. Ubax Faarax Axmed waxaan ahay dhakhtarka caruurta waxaan ka imaaday waddanka Talyaaniga magaalada Roma waxaan hadda ka shaqeeyaa Isbitaal Banaadir waa isbitaalka ugu weyn magaalada Muqdisho waa isbitaal public hospital ah oo dawladda leedahay waa isbitaal loogu gargaaro ummadda Soomaaliyeed oo dhan sidii hadda hal erey kuma qeexi karo meel aan meeshii laga baahan yahay tagaa caruurta laakiin hadda the main objective ka meesha waxay tahay in meeshaas shaqada ugu qaban lahaa si ay u noqon lahayd meeshaas ay meel kaligeeda socodsiiso dhaqaatiirta juniorka ka shaqeynaysa aan tababar ugu sameyn lahay ha ahaato skills ha ahaato coaching ha ahaato shadowing ha ahaato maalin walba wacyigelin iyo tababar joogto ah oo job training aan u sameeyo si ay hadhow u noqdaan dad iyaga isku filan oo kasii hanqaado meesha ugu taga shaqada ilmaha hadda dhashaan markay xaalad degdeg ku jireen awal waxaa loola soo carari jiray qaybta caruurta oo waxay ku qaadan jirto waxaa dhici karto 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo waxay noqotaba hadda waxaan helnay traininga kadib in dhakhtarka meeshiisa isla markuu hooyadiisa caloosha ka soo baxo in hadda 24 hours oo dhakhtar meesha joogo waa achievement aan gaarnay ميدا أنا وحنو أركانو يا كباس بيلدين marka waxa uga faa'iideysan karnaa ani step aan u baahanahay anagoo baahideena sheeganayna qof walba maanta kalsooni buuxda wuxuu ku qabaa in haddii ilmo yar registration u baahdo inuu samayn karo isagoo aan ka baqanaynin inuu step lumiyo marka si wanaagsan programka uga faa'iideysanay waqti badan aan la gelisay dhakhtaradda aad iyo aad uga faa'iideysanay kahor iyo kadibna waxaan faa'iido badnayn markii programkana loo sameeyay aan wax badan ka faa'iiday Dr. Ubax markay timaaday bishii September inagu soo biirtay ilaa ay hadda runtii maalinna firaaqeedin waqtigeeda waxaa laga yaabaa familkeeda xataa inaysan la qaadan mar walbaba ay isbitaalka dhex taagan tahay isbitaalka waa isbitaal teaching hospital ah waxaa ku tababarata 13 jaamacadood oo ku sameeya internship program ku sameeya 400 oo arday ka badan ayaa ku qaadata bishii intaas oo arday ah waxay u gudbisaa aqoonteeda waxay ku sameysaa on job training in xirfadii ay ku practice garay meesha ay tusiso wixii ka qaldan patientii korkeeda ku practice garaya darasuhu horta waxyaabo badan aan ku jeclahay waxa ugu muhiimsan waxa waaye waa qof humble ah flexible ah يعني islaweynaysan ku jirin oo si adiga qof kolleegaaga oo kale wax kugu sheegayo marka si waxa ugu faa'iideysaa oo farxad ku jirto waxay keentay in annaga xataa ay gaarto aqoontii aan hayna xataa gudbinteedii ay sahlanaato hadda hooyo kasta oo dhalays waxaad kor taagan dhakhtar newborn u tababaran oo qaybta caruurta ka shaqeeyo waxaana tababaray doctores Ubax hadday ahaan lahayn la'aanteed maana soo kordhin serviceskaas quality-ga leh annagana waa wixii wax walba oo tala iyo tusaale isbitaalka ay xataa ku qabtaa kaliya ma ahan in newborn ka shaqeyso wax walba oo isbitaalka lagu horumarin karo ayay nagala shaqeysaa